baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa maalin ka hor siyaasiyiin iyo odayaal muddo ku kulansanaa waxa ay ku doorteen madaxweynaha maamulka sheegay inuu ka talin doono 6 gobol oo ku yaala koonfur galbeed Soomaaliya hase yeeshee xukuumadda Soomaaliya ayaa ka soo horjeesatay arrinkaasi waxaana wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdullaahi Goodax Barre oo la hadlayay TV-ga Universal uu sheegay in xubnaha doorashada sameeyay inaysan marin wadadii saxda ahayd ee loo baahnaa sida daraadeedna aysan xukuumaddu aqbali karin wixii shalay ka dhacay magaalada Baydhabo موقفكان وحوي إن مركا أهريسو مركا معمول جواليد لسماينايو لامرو طريقة دستور كوقبو يشروع دو ودن كوطال وحنا أمسنا هاي إن إنتاس لامرين أرمها كدعي بيدو وحا إنتاس دير go-aanada ذا odayaashu ay ku gaareen iyo siyaasiyiintii Baydhabo iskugu tagtay in muxuu ahaa uu saameyn ku yeelanayo go'aano hore loo gaaray sida go'aankii Addis Ababa muxuu ahaa lagu ogolaaday in lagu dhiso maamulku meel gaar ee gobolada Jubbooyinka iyo Gada ay yeeshaan Baydhabo laftirkeeda dadka joogo ma isku wada waafaqsana waxan waxa jiro koox kale oo ayadana saddex maamul goboleed saddex laga yaabo bari ama bari dambe hadana iyaguna sidaas oo kale inay sameeyaan taasna waxay keenaysaa fawdo iyo in ummaddu siyaasad iskaga hor yimaadaan siyaasadda iska hor yimaadkuna colaad keeno war saxaafada shalay aad soo saarteen ayaad ku sheegteen inaad doonaysaan maamul 3 gobol ka kooban in goboladaasi loo sameeyo haddana Baydhabo qaban qaaba shir maamul 3 gobol loogu sameeynaya ayaa soconaya dawladdu ma shirkaasi iyo dhismaha maamulkaas ay taageersan tahay rabitaanka dawladda dhexe ma aha nooca lagu sameeynayo maamul goboleedyada waa rabitaanka shacabka markaas meesha jooga iyagoo maraayo dariiqi loogu talagalay dastuurka iyo sharciga uu qabay maxay idinku kala duwan yihiin marka 6 gobol in maamul loo sameeyo iyo 3 gobol oo hadda aad taageereysaan xukuumaddu 3 gobol ma taageerayso 5 gobolna ma taageerayso 6na ma taageerayso xukuumaddu waxay taageeraysaa waxa dadku rabo iyagoo maraayo nidaamka dastuuriga waxa ila fiican inaan nidaamka dastuurka qabaan wax yar fasiro si yani ma taqaana loo fahmo dastuurka iyo sharcigu wuxuu leeyahay marka la rabo maamul goboleed in la sameeyo waxa laga soo bilaabaa heer degmo degmooyinka ayaa waxa siyaasiyiinta oo markaan xildhibaanada ah iyo odayaasha dhaqanka ee degmadaas degma laga hadlaa heer degmo ayaa inta fariisto waxay magacaabayaan ergo 100 qof ah 100kaas qof waxay soo dooranayaan council 20 qof councilkaas 4 kamida ayaa waxay u gudbaysaa heer gobol degmooyinkaas councilada ka yimid ee heer gobol noqday ayaa waxay la macaamilayaan gobol kale oo ayagana sidaas oo kale ku yimid 28 bishii dhamaatay ee February ayaa lagu balansanaa in dawladda Soomaaliya ay la wareegto maamulka garoonka iyo dekedda Kismaayo sida uu dhigay heshiiskii lagu gaaray magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia go'aankaasi oo aan wali fulin ayaan wasiirka weydiiyay waxa iska bedelay heshiiskaas waxa uu dhalay in maamulku meel gaar loo sameeyo labada jubbo iyo Gedo shuruudo kale oo hadda ay ka mid tahay muxuu ahaa arintan dekedda way jirtay markuu horeyso horta dekeddan iyo airportkan yani gacanta ugu ma jiro dad cadow dad shisheeye gacanta ugu ma jiro waa dad Soomaaliya dadka la yiri 6 bil ayay maamulayaan 6 bilna waxay ku ekeed waqti hadda laga jooga 4 maalin wax la ordaayo oo yani ma taqaanaa degdegaho lagu ordanay runtii ma jirto laakiin qaabkii xukuumadda dhexe ay wala soo wareeg lahayd way socotaa Axmed Nuur Cali Maxamed Universal TV Muqdisho